watahay dhegeystayaal weli naga dhegeysanaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa xalay lagu dilay sheekh caan ka ahaa magaaladaasi iyo gobolada ku hareeraysan. Sheekhan ayaa lagu magacaabi jiray Shariif Sayid Cali Shariif Nuurow Amiin ayaa la sheegay in dad hubaysan oo aan la aqoon ay toogasho ku dileen xilli uu ka soo baxay salaada maghrib kuna sii jeeda gurigiisa. Saare Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriirtay wiilka uu dhalay sheekhaasi oo la yiraahdo Saalax wuxuuna uga warramay sidii dhacdadaasi u dhacday. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Shariif Sayid Cali Shariif Nuurow Aamin ayaa gacan ka xadaran ay dishay ayaa maxaa lahaay bacda al-maghrib asoo salaad maxaa lahaay maghribka imaamka ahaa oo masjidka soo dafiyay ayaa kadib maxaa lahaay dad aan la aqoonin oo maxaa lahaay meel ay ka socdeen ay soo darsatay iyo sabab maxaa lahaay hadda sheekhan shariifkan ay u beegsadaan aan la ogeyn ayaa maxaa lahaay u dhaxaysa masaajidka iyo gurigiisa maxaa lahaay meel dhow guriga ku dilay maxaa lahaay salaadii maghrib kadib. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waa geeri aad maxaa lahaay nooga nixisay. waayahay marka Shariif markuu aabaha salaadii maghrib ka soo baxay misaga soo tukiyay mise masjidka uu ku soo tukaday oo uu ka soo baxay? walaalay Shariifku wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn maxaa lahaay Soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada Baydhabo uu joogay. marka hadduu masaajidka si jooga asaa imaamka ahaa mar walba oo masaajidka uu soo gala asaa la horumarinayo ay masaajid hal masaajidna ma ahayn ay masaajid maxaa lahaay markaas Shariifku uu jooga waa takriiman wa tashriifan lahu dadka maxaa lahaay Shariif salaad naga bixay dhijray marka salaadii maghrib asaa soo dukiyay masaajidka imaamku ka ahaa. marka ma naqaano maxaa lahaay dadkan hadda waan gartay marka waa tahay marka bal iiga waran sidee wuxuu gaadheen maxaa lagu dilay hubka lagu dilay nooc mu aha ma qori baa lagu dilay mise midi? walaalay hadda intaan hadda maxaa lahaay aan ka aragnay laba xabadooda ku dhacday mid dhigta ugu dhacday maxaa lahaay iyo mid naaska maxaa lahaay ku aadkiisa marka labadaas xabadood oo aab u dhintay maxaa lahaay ilaahay maxaa lahaay qadar ilaahay uu ku dhintay insaan wax uu diri kara ma laha laakiin qadartii ilaahay aan la dhaafi karin oo ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay laa yastakhiruna saacata walaa yastaqdimuun. qofka xilliguu dhiman lahaa mana laga hormarinayo mana laga dib marinayo laakiin saacadii maxaa lahaay sababun bay maran ahaayeen dadka maxaa lahaay aaba dilay. waa gartay marka anagana waa tay marka cid arkaysay ma jirtaa markii sheekha isagoo socda xabadda lagu furayay? wallahi walaalay dadkan maxaa lahaay ma hadda qof dhihi karta maxaa lahaay qof hebel uu ahaa iyo qof hebel uu ahaa ma jirto. maya tiradooda xataa ma la arkayay? inay ahaayeen un baan dareemi karnaa wax kale hadda aan ka ognahay ma laha anaga. maxaa tuhunsan tihiin? maxaa tuhunsan xitaa siyaasadaha isdiidan meesha ka kasnaa ma lahayn qof wadaad oo bis masaajidada maxaa lahaay muxaadaraadka diiniga kasoo jeedinayo maxaa lahaay markii masaajid la furaayo maalin ugu dambeysay masaajidka jaamaca Baydhabo weyn markii la furaayo culimadii maxaa lahaay hormuudka eedu kamid ahaa ay maxaa lahaay kulamada diiniga iyo maxaa lahaay masaajidada ayuu member ka ahaa. marka maxaa lahaay qof siyaasad ku jirana ma ahayn hadda Soomaaliya siyaasada isku haysta hadda waxaana saytay maxaa lahaay xibin kama ahayn xitaa wuu ka taxafuli jiray intiisa badan maxaa lahaay dhibkaan soo u dhacay ay meel uu ka taxafuli jiray ma aadin jirin.